السلام عليكم عروري كسر هذا برنامجك شيكوي شيكو with Miss Maryam. That's me. مقعيدة و Miss Maryam. مقعيدة means my name is. So, what's your name? مقعاقة و You have to say your name. Your name is. Let's try in Somali. مقعاقة و مقعيقة ويوسف مقعيقة وأيان مقعيقة وأحمد. Thank you for sharing. Wow, مقعد وقرح بدن أياد لهي. That means you have a very beautiful name. أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كن كنكوهي حرفها عن آخرنا ها ها مدبرن بارنا ها ها تيروين كان تيرنا ها ها تيروين كان تيرنا ها ها شيكوين كان ديجي سنة ها ها شيكوين كان ديجي سنة ها هاي أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كن كنكوهي أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أردي مس مريم بانا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كنا هاي أبوحي ودن كن كنكوهي قيبتن waxaan ku baran doonaa caruurey midabada. It's time to learn colors in Somali. I love colors. caruurey maanta waxayna soo booqday magacaaga u sheeg. You have to tell them your name. مقعيقة وسهيب. wiilkan waxaa la dhahaa Suhaib. ها وسيدي شاكتي وحانا هاي سهيب. Yes, magacaaga waa Suhaib. Suhaib, maanta waxaan baran doonaa wax la dhaho midabada. Do you know what midabada means? ها مدبادة سوما أهان وحيابها لأنو. No, silly. Midabada means colors. We are going to learn all about colors, but in Somali. Do you know your colors? Midabadena ma garanaysaan? Okay, so we're gonna play a game. Do you guys want to learn about colors in Somali with us? ها أديانو حسينينا. haye markaa game aan ciyaari doona la dhaho waa midabkee. Suhaib, midabkan maxaa la dhahaa? أنيقا أهان تيدا وأجار سوما أها. No, midabkan waxaa la dhahaa casaan ama guduud. That means red. Casaan or guduud means red. haye mid labaad kanna midabkee waaye? كان وهو إيجيا هاي باتا. midabkan waa buluug. Buluug. Buluug sounds like blue because that's what it is. Blue. In Somali, we say buluug. Can you try and say it, Suhaib? بلوغ. Shaqo and accent. Great job. Okay, here's the next one. What about Suhaib? What color shirt does Suhaib have on? And can you say it in Somali? Suhaib, kan brother udawo. Here, you can get a closer look. وكاشن سما شاتيجا. All right, on the count of 3, we say it together. Ready? But let's count in Somali. Ko, labo, sadeh, agar, agar. Suhaib shatigiisa waa agar. Suhaib's shirt is green. Can you say with me? Agar. The a sound is what comes first. Agar. Try it, Suhaib.
Agar. Agar. Great job. All right. You're on a roll. All right. This next color is what? What is that? Orangey. Right. We can say orange or limi. Can you try saying it with us? Orange in Somali is orange, or you can say limi. Okay, here comes the next one. midabkaas maxaa la dhahaa? Macaspa. Day what? Meadow. Oh my goodness, how did you know about that one? Bakalimatay Marian ayan kamakale. Okay, all right. High five, Suhaib. All right. Wasah, Suhaib. Yes, that color is called meadow. 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 Not meadow, meadow. And that means black. Try saying it with us. Meadow. All right. Shatigega wa meadow. Shatigega wa meadow. My shirt, or technically it's a sweater, is black. Now, what's the opposite of meadow? There's meadow and then there's... Say it with us. Adan. Yes, Adan means white. I'm sure you knew that one. Yellow is jalle. Jalle, jalle, jalle. Can you say it with us? Jalle. Yellow is Jalle. jalle. Do you know what this color is in Somali? Yes, this color is called basali. Pink in Somali is basali. Let's try one more. Here comes the next one. Midabkas maxaa la dhahaa? Kaswa so Sally. midabkaas maxaa la dhahaa? Midabkaas waxaa la dhahaa sosali. Purple in Somali is called sosali. Can you say it with us, friends? Sosali. Great job, friends. I'm so proud of you. I'm so happy. Waan faraxsanahay. muscab maanta muxuu xirnaa funaanad cagaar ah surwaal buluug ah kabo madow ah ookiyaal casaan ah ama muraayad casaan ah Jale, blug, asan, or you can say gudud, orangi, or you can say limi, basali, sosali, adan, meadow, agar. Shaqo wanaagsan ayaad qabataan maanta. Waxaana halkaas ku baranay midabyo oo kala duwan. Haye caruuray, waxaa la gaaray waqtigii ciyaarta. Diyaar ma tihiin? That means, are you ready? You're going to respond by saying, ha. Ha means yes. Ha. Caruuray, diyaar ma tihiin? Ha. Good job. Let's go play. Aan aadno beerta xoolaha. saaxiibyaal maanta waxaynu aadinaa beerta xayawaanada si aan u soo aragno qaar ka mid ah xayawaanada. Let's go to the zoo. Eeg, waxaan arkayaa maroodi. Ma ila tirin kartaa inta maroodi ee halkan ku jirta? 1, 2. Waxaan aragnaa 2 maroodi. Haye, haddana ma ila tirin kartaan inta daanyeer ee geedkan hoostiisa ku cayaaraya? 1, 2, 3, 4, 5. Waxaan aragnaa
5 daanyeer. Haye caruuray, ma ila tirin kartaan inta gari ee halkan ku jirta? 1 2 3 4 5 6. Waxaan aragnaa 6 gari. How many birds do we see in the sky? Let's look up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shimbirood ayaan aragnaa. We see 10 birds. Kalabasade, hafashali, todo basidir, sagal to ban. Kalabasade, hafashali, todo basidir, sagal to ban. Kalabasade, hafashali, todo basidir, sagal to ban. waa waqtigii sheekada. Caruuray, diyaar ma u tihiin inaad booqataan maktabadda si aad u dhegaysataan sheeko xariir oo gaar ah oo uu inoo soo jeedin doono Macallin Maxamed oo ah maktabadle? Haye fariista, si fiican isu hagaajiya, dhagahana fura oo u diyaar garooba inaad maqashaan sheeko xariir. Aamina waxay haysatay 5 keeg oo aad u macaan. iyada oo doodaynaysa ay santuuqii si taxaddar leh u qabatay. Markaasay aragtay 9 saaxiibadeed ah oo dibadda ku ciyaaraya. Aamina waxay istiri 9 saaxiib iyo aniga waxaan nahay 10 qof. Maba xuma, laakiin waa 5 keeg oo qura. Waxay doonaysay in qof kastaaba uu dareemo in lagu xisaabtamay. Aamina way fakartay oo aad ayay u fakartay. Kadibna waxay keeg kasta u goysay 2 qaybood oo siman. Haddaba waxaa soo baxay 10 xabbadood. Saaxiib kasta wuxuu helay qaybtiisii. Aamina waxay halkaas ka baratay in wax wadaagistu ay kordhiso farxadda. Markaan wax qaybsanno, qof kastaaba wuu farxaa. B waxaa loogu dhawaaqaa af Soomaali ahaan ba. Repeat after me. Ba. Sida biyo, buug iyo bus. Ba. Okay, now this is the letter T. Xaraf T. T waxaa loogu dhawaaqaa af Soomaali ahaan ta. Ta. Say it with me. Ta. Sida tukaan, timo iyo tufaax. We're going to play a game. Does it go on this side or this side? You will help me decide. Boog. Where does boog go? Dhankee buu aadaa buuga? Ma dhanka ba mise dhanka ta? Sax, boog wuxuu aadayaa dhanka ba. It's gonna go on this side. Ba. Timo. Timo means hair. Timo. Dhankee buu aadayaa timo? Dhanka ba mise dhanka ta? sax, timo wuxuu aadaa dhanka ta. Biyo. Biyo ma wuxuu aadaa dhanka ba mise dhanka ta? sax, biyo wuxuu aadaa dhanka ba. Shaqo wanaagsan. Tufaax. Tufaax ma wuxuu aadaa dhanka ba mise dhanka ta? sax, tufaax wuxuu aadaa dhanka ta. Baaskiil. Baaskiil wuxuu aadaa dhanka ba mise wuxuu aadayaa dhanka ta? sax, wuxuu aadaa dhanka ba. Tusbax. Tusbax dhankee buu aadayaa? sax, dhanka ta. Tusbax ta. Bataja
beertii afkeena xaaqaada dugsigii barashada raasaasha raajadii afkeena dhacaaqa faaqaaka lamana wahaya lamana wahaya lamana wahaya baataaja beertii afkeena xaaqaada dugsigii barashada raasaasha raajadii afkeena dhacaaqa faaqaaka lamana wahaya lamana wahaya lamana wahaya talooyinka ayeeyo iyo awoowe carruuray qofiinan aqoonin haddaad aragtaan ha raacina wuxuu idin siiyana ha qaadaninna. My children, Ayeyo say that if you see someone you don't know, you should not take what he gives you and do not follow him. Waxaan kusoo gabagabeyneynaa qaybta koowaad sheeko with Miss Maryam. Waxaan hadda idinkaga tegaynaa nabad iyo barwaaqo. Bye. Assalaamu calaykum. ubuxii wadankanahay ubuxii